الله تعالى وبركاته خيرتين قالقا كسو دواده meel kasta ku sugantiin halkan anaga daawanaysa oo bartaan YouTube ku leenahay Cabdi Xarago official fanaanada cusub tahay subscribe like share comment inta waa ugu caawin kartaa haday tahay markii koobaad soo booqato channel-keygana inta si video-ga naad ugu cajabiyo like inta waa ugu caawin kartaa hadii aad hore noolo joogtayna aad baa salaamatay hadii aad ugu cusub tahayna diyaar laga sugo maanta waxa igu martay barnaamijkan inaan hore u aragteen ayuu gacmo dheere aad ma tarto waa la soo qabtay barnaamijka laga hadlayaan lama socdo marka hadda ay waran hadda si kadiisa igu soo qabtay barnaamijka wallahi inakii maalintii hore video-ga ka horeeyay aan ka soo duubay wiilkii ayaa le isaga laftigiisa ma ogay barnaamijka waa barnaamijka dadka aan ku gaadayo maadaama ay tahay qofku feelings ay ka keenaysa ama wax dareen marka barnaamijkeenu waa barnaamijkii la magac baxay qurbo waa timiye maxaa kugu la yaab badna maanta waxay noogu marti ama inoogu macsuumaan walaalkeen Ayuub oo ku magac dheer gacmo dheer Ayuub waxaan weydiin doonaa 4 su'aalood oo aan u badnayn insha Allah inaga laftarkeena waxaan ka faa'iidi doonaa aan ku bilaabo qurbo waa timid Ayuub anaguna laftarkeyga waa laakiin maanta adeeg ku joogto qurbo waa timid maxaa kugu la yaab horta marka imaaniyay waxaan imaaday xilli samar imaado waan gar xilli samar u yara macnaa balbad xilli waxa imaaday niihow xilliga maalinka u badan yahay wadankan wuxuu kale laba qaybna habeenka badan qaybna waxa badan maalintii marka waxa ku soo aaday xilliga maalinta badnayd sax barafnaanu jiray waan gar kaasaan niyo marka duhurkii tukaday waxa isleeyahay qoraxda isbedesho niyo sida casarkii isku bedesho qoraxda galbad yara sugiya waxa arka qorax saaxiib 2 saac taagan waan gartay 2 saac sideed saaska hurday waa liimaada waan gartay marka waxay ka yarsan yihiin walaal dhabiya casar tukan asal kaada soo maxay casar ma gaarin magaalo qorax ark ma tuu dhanbool ka keen ba ark qorax tukada aad u dhaariyay waan gartay waa wax la yaabo oo de marka wadankii la joogo ma aragtay inaga qoraxdeena waxay naga dhacdaa sidaan ugu badanahay waxay naga dhacdaa 6 galabnimo ama qaar marna 5 6 subaxnimo noo baxdaa salaadeena waxay ku salaysan tahay mar walba qoraxday ku salaysan tahay marka inaga waxyaabaha aadka ugu la yaab badan qofku markuu qurbo yimaado ay ka khalkhalayso xilliga salaada la tukanay waxaad arkaysaa salaad subax oo la tukanayo 8 marka qaar waxaad arkaysaa salaad duhur waa iska caadi waxaad arkaysaa salaada maghrib oo la tukanayo marka qaar 3 galabnimo xilliga habeenku badan yahay marka wax aad iyo aad loola yaabo dadka yurub moodaya wax nafle abti waa tan waanu iskaga noolahay ma garatay laakiin amni haystaan alxamdulillah niyo su'aasha labaad aan ugu gudbo Ayuub su'aasha labaad waxay tahay markii aad la kulantay waxaas dabcan horta mar walba Finland ba joogtaa laakiin markaad waxa aad la kulantay dareen nooceeya baa ayaa siday kula noqon wallahi niyo horta maalin ugu horeysay waa la qabsan waayay horta hurdadu waa ugu yaraatay oo xilligaas xilligaas soo kacay kala garan waayay qorax soo jeed waxa iska ahaa mataqaan hurdada badan iyo xilliga hore seexda صح ما suurtagelayso qodobka 10 aan bado isbuucii bilka ku waday laakiin dib hawshu waa inuu si wax iska okay wala qabsaday arintaas bishii koobaad ee kula kulantay waa helsin leeyahay gobol leeyahay asbe wada xafadayda okay inta marka ka soo gudubno maalintii koobaad ee imanaysay garanaysa samar baad la kulantay dabcan xilliga ka yaal maalintii koobaad ee timid iyo maanta walow iyada laftirkeeda maanta ba ay samar tahay laakiin sanadaad joogtay sidee macnaha dareenkaaga ma isbedelay oo wixii de maanta different oo ku leedahay wali waa la qabsatay ni horta hadda waxay ka samarkii labaad bay tahay saddexaad bay tahay sax marka imaaday waa laga soo gudbay samarka la soo gaaray kaasna sidoo kale ahaa hadda laakiin waa la qabsaday saacadii markii la gaaro waa xasuustaaniyo saacaddan ku tukanaa saacaddan akhyaarta qaaliga barnaamijkeena su'aasha ugu dambeysay waan weydiiyey waana noo leeyahay barnaamijkeena su'aalaha intaas ay yihiin de qof walba waxbaad ka faa'iideysaa shalay waxbaynu faa'iidnay fiidiyoogii hore maantana waxbaan ka faa'iidnay de dad la yaabay qoraxda waana runtii waxaan waxyaabaan uu ka shaqeynaya waxyaabo reality qofka inta joogtana way taqaanaa inta ka maqanna de way maqlaysaayo haddii alla keenaba way la kulmi doontaa waana wax reality barnaamijkeenu waxa ugu muhiimsan oo diiradda saaraya ama uu inoo cadeynaya waxay tahay dadka halka ka maqan wadankii jooga waxay ka aaminsan yihiin Yurub xumaan iyo wanaagba inaanu tusno oo aanu dadka Soomaaliyeed aanu hal qof aanu u soo fadhiisano halkan ama aanu halkan u keenno oo aanu weydiino su'aalo dhowr ah kuwaasoo keenaya qof dadka halka joogay inay su'aalaha qabaan ay jawaabahooda ay si fiican uga jawaabaan aad bay salaameen